السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوغان aan maanta kula wadaagi doono waa albaabka aad ka galaysa fikirka istiraatiijiga adiga ka shakhsi ahaan inta aan wax kale la gaarin. Boogan waxaa la alifay 2500 sano ka hor. Soo ma ahan waqti aad u fog. Waxaa qoray mid ka mid ah hogaamiyaasha taariikhda kuwa ugu caansan, Sun Tzu, hogaamiye Shiinaysa. Boogan sababtu caan ku yahay waa inuuna ku soconin kaliya hogaamiyaasha ciidamada ee xitaa afkaartiisa ay anfacayso qof walba naga mid ah. Waana sababaha keenay inay dadka caadiga gataan toobaneeyo luqadoodna lagu tarjumo caalamkan aan ku noolnahay. Adiga, aniga, waalidkeen dhammaanteen mas'uuliyad ayaana saaran. Haddii aad tahay macallin, haddii aad tahay maamule, go'aan ayaad qaadanaysaa. Haddaba waxaan u baahannahay in aan ognahay waxa aan samaynayno. Haddaba maanta waxaan halkan idinkula wadaagayaa afkaarta ugu muhiimsan buugan cajiibka, fanka dagaalka, noloshaada caadiga aad ku maarayn karto. Haddaba ku soo dhawaada mawduucan. Waa anigoo Cumar Inshaar. Yaa ahlan wa sahlan. haddaba aan ku soo laabanno mawduuceena. Wuxuu leeyahay qoraagu Sun, dagaalka waa dhagar, wax walba oo dagaal xiriirana waxay ku dhisan yihiin dhagar. Weliga ha u malayn cadowgaada inuu ku naxaayo, weliga ha u malayn cadowgaada horumarkaada iyo nabadgelyadaada in uu rabo wax maslaxad ugu ma jirto. Waxaad ogaataa inta aadan meel kala gaarin waa markaan qodobkan ka hadlayna in noloshaada adiga ay tahay dagaal aan dhammaad lahayn, loolan joogta, loolan aad kula jirta naftaada, shahawaadkaada, noocyada ugu xun ee bini'aadamka. Nolosha bini'aadamka waa iska hor imaad joogta. Wuxuu leeyahay qoraagu marmar cadowgaada u muuji inaad ku jirto xaalad aanan wanaagsanayn, xaalad fawda ah, arrinkaanoo ah dab inaad u tuuraysa sidii markaad kalluumaysanayso kale. Kadibna cadowgaada burburi. Haddii cadowgaada lacalla uu xaalad nasiina iyo kala daadsan ku jiro, kadib markuu ku arkay xaaladaas adiga aad ku jirto, ha siinin fursad, burburi, meel walbana oga soo bax ayuu ku leeyahay. meeshan wuxuu leeyahay qoraagu ha isku furin jabahaad badan hal waqti. xilliyada qaar la saaxiib cadowyadaada qaar si aad ugu tafaruqdo cadow kale. yani xitaa adiga ka qof caadi ah noloshaada waad ku maarayn kartaa in loolana badan aadan hal mar isku furin, in dadka dhan aadan cadaawad u qaadin, saaxiibada iyo cidda dadka aad la tacaamulayso, noloshaada way istaagaysaa. meeshan wuxuu leeyahay ka fogow dagaalada aanan dhammaadka lahayn. dagaalada dheer wuxuu ku tilmaamayaa sidii god fuuqsanayo macnawiyaadka ciidankaada iyo hantidaada. ma sami karta ayuu ku leeyahay nafaqaadka aad ku bixinayso iyo mawaarid ilahaada wax aad soo saarayso. tusaale nool waxa kuugu filan midowgii Suufiyeedku wuxuu burburay kadib dagaalkii Afghanistan. dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal dheer oo aan dhammaad lahayn, hantidii midowgii Suufiyeedkana fuuqsatay. ugu dambeynna waa kay burburay bilowgii 90-aadkii. sidoo kale Maraykanka, gaashaanbuurta NATO ee Yurub oo dhan, iyagoo awoodooda dhaqaalahooda aan ognahay, waxay u adkaysan waayeen khasaaraha dagaalkii Afghanistan. waana kuwii markii dambe iskaga baxay. adiga ka shakhsi ahaan loolanada aan dhammaadka lahayn, muranka joogtada, iska hor imaadka joogtada, xaaladda qabitaan ama furiinka aan ahayn, adiga unbaa ku halaagsamayo naf ahaan iyo wax walba. meeshan qoraagu wuxuu tirinayaa 5 gaf oo ay macquul tahay inuu hogaamiyuhu galo, natiijaduna tahay dabcan jab iyo fashil. inta aanan kuu sheegin, hogaamiyahaas wuxuu noqon karaa adiga, hogaamiyahaas wuxuu noqon karaa qof walba oo naga mid ah, adiga, qoyskaada, carruurtaada, yani dad dabcan inta badan dad ayaa ku hoos imaado ama mas'uuliyad ayaa ku saaran aan dhahno. wuxuu leeyahay kow, degdega iyo miisaan la'aanta, sida inaad kaftamayso kale, inaad dagaal u gasho yani adigoo qorshe aanan lahayn iyo xaalad micnaha dhabnimo ah ka fog, kaanuu inaad iska ciyaarayso kale. xitaa xaaladaha loolanada aad galayso si dhaba u gal. 2 fuliynimo keenaysa in lagu qafaasho, wuxuu aad uga digayaa inaad baqdo. 3 ujeedkaada ugu weyn inuu yahay dagaal markaad galayso inaad ka soo laabato adigoo bad qabo, in xitaa aadan dhaawacmin. mashruucada tusaalaha markaad galayso iyo shay markaad samaynayso inaad u gasho adigoo leh waxaa laga yaabaa inaan fashilmo, ayadoo lug bannaanka ay kuu taallo, si madaxa u gal, yaqiin ah. sidoo kale wuxuu leeyahay carada xad-dhaafka. haddii aad hogaamiye tahay, cara iyo adiga yani ma wada shaqayn kartaan. sida uu yidhi Cantara ibn Shaddaad oo kale, laa yaxmilu alxiqda man tacluu bihi arrutabu walaa yanaalu العلا من طبعه الغضب. sidoo kale wuxuu leeyahay xasaasiyad xad dhaaf inaad yani ka qabto sharafta, sumcadda, ceeb, arrinkan ama ceeb ugu keena kaannu inaad ku socoto kala dhulmiinaysan, is ilaalintaadu ay aad u badan tahay. wuxuu leeyahay sidoo kale waad fashilmaysaa weliba markaad fiirinayso wax dadka ay kaa dhihi doonaan. meeshan wuxuu soo bandhigayaa talooyin ku socda hogaamiyaha. waxaad ogaataa mar kale inaad adigana ku dabaqi karto noloshaada caadiga. maanta ma jirto dabcan qof ayna mas'uuliyad saarnayn. wuxuu leeyahay haddii aad dagaalka aad galayso natiijadiisu ay u muuqato in aad guulaysanayso,
dagaalka wad xitaa haddii uu hogaamiyaha ugu sarreeyo ku amro in aad dagaalka joojiso haddii aad aragta dhinaca kale in natiijada dagaalka aad ku jirta ay u muuqato jab iyo fashil dagaalkaas sii wadin xitaa haddii uu hogaamiyaha ugu sarreeyo ku amro inaad dagaalka sii wado ciidankaada oo la dhaqan ayuu leeyahay sidii in ay carruurtaada yihiin oo kale aad ayay kuu ixtiraami awaamirtaadana u fulin si qalbigooda ka soo go'day waxaad uga qiyaas qaadan kartaa mar kale dadka ku hoos imaado xawaaraha iyo degdega ayuu leeyahay waa udubdhigga dagaalka cadowgaada ku qaad dagaal sidii daadkii oo kale ah dagaal uuna filaynin oo aad meel walba ka soo weerarto sida uu leeyahay markaan ka hadlayna dagaalada degdega ah ma taqaanan sidii uu Adolf Hitler ku qabsaday Yurub muddo yar gudaheed Hitler wuxuu adeegsan jiray dagaal lagu magacaabo Blitzkrieg dagaalka hilaaca dagaal degdeg ah oo wax fursad aan la siinin cadowga in uu rad ficil ka sameeyo wuxuu raacinayaa adiga ka hogaamiye ahaan hawshaadu waa deganaan yani xitaa haddii xaalad khatar ah lagu jiro mar walba u muuqo qof degan sirihiisana ilaashada caadil u ah ciidanka ama dadka hoos imaada qaybtan sidoo kale wuxuu nagula talinayaa wuxuu leeyahay in aadan wax isbahaysi la gelin dariskaada macquul wuxuu leeyahay imbaraatoriyadaha iyo dawladaha kugu hareeraysan gaar ahaan haddii ama kaa dhul weyn yihiin ama ay kaa awood badan yihiin weligaa hala gelin ayuu ku leeyahay isbahaysi sababtoo ah sirahaada oo dhan ayay ogaanayaan hal mar ayayna kugu soo laabanayaan markay ku ogaadaan waxa aad tahay weligaa ahow qof sirihiisa ama dawlad xitaa ka dawlad ahaan aan la ogaan karin horey u dhaqaaq haddii ay maslaxadu kugu jirto inaad horey u socoto haddii kalena booskaada iska joog san waxaa lagu tiriyaa micnaha aasaasaha jawaasiista wuxuu leeyahay aad u adeegsa jawaasiista markii aad dagaal ku jirto maanta waxaa la mid adiga ka shakhsi ahaan macluumada inaad hesho maanta adduunka waxa ugu xoogan waxa lagu magacaabaa informationkaas macluumadaas aad helayso waxaas aad baranayso koorsooyinkaas aad qaadanayso mar kale shar xirfadaha moogaanin wuxuu leeyahay sidoo kale ha weerarin cadow macnawiyaadkiisu aad u sarreeyo wuxuu leeyahay haddii aad ciidan hareerayso u bannee meel yar oo uu ku cararo haddii uu meel uu ka baxo waayo ciidanku wuxuu ku qasbanaanaya in uu dagaalamo ilaa iyo askariga ugu dambeeyo adigana arrinkan diyaar uma tid khasaare dheeraada yacni fiiri xitaa haddii aad mukulaalaha qol ku soo xirto daaqadii albaabka aad ka xirto oo ay weyda meel ay ka baxdo adigay ku soo aadi yacni dadka caadigana waxaad dhihi kartaa qof weligaa cadaadis xaddhaaf ha saarin cadaadis keenaya inuu hal mar qarxo yacni mar walba daaqada yaryar ha furnaadeen halkan qoraagu wuxuu leeyahay in aadan lahayn istaraatiijiyad cad dagaalka ka hor waa arrin keenaya fashil iyo jab mar walba dagaalkaad ha ahaad ayuu ku leeyahay mid degdega wuxuu aad uga digayaa dagaalada aan dhamaadka lahayn meeshan sidoo kale wuxuu leeyahay shay dabcan qof walba Soomaali oo akhrisan karo wuxuu leeyahay cadowgaada inuu ahaado mid sidii nin jiran ah sidii ay ahayd maalmihii ugu dambeeyay dawladda Cuthmaaniyiinta ee Yurubiyaanku ay ku magacaab jireen ninka jiran kadibna dhulkeeda ay kala qaybsadeen in cadowgaada uu sidaas ahaado ayaa kaaga fiican ayuu ku leeyahay inuu hal mar burburo sababtoo markuu jilicsan yahay waxaad awoodaa inaad taxakumto meeshii aad rabtana aad ka soo gasho sidaas darteed wadamada Soomaaliya dariska ma rabaan inay Soomaaliya noqoto dawlad xoogan waxay rabaan dawladdaas kala furfuran murankaas aan dhamaanaynin si ay faraha u galiyaan wixii rabaan ay oga sameeyaan wuxuu ku leeyahay cadowgaada ka dhig mid waayo ruuxdiisa macnawiga iyo ujeedka uu u dagaalamayo haddii aan haysta ayuu ku leeyahay 5 askari 3 ayaan dagaalka u qaadan labada soo hartayna waxaan uga tag waxyaabaha aan la filaynin inay dhici doono ciidankaada dhammaantood goobta dagaalka ha geyn xitaa adiga ka shakhsi ahaan wax walbood haysta bannaanka ha soo dhigin wuxuu leeyahay sidoo kale qorshaha heerka sare ah waa inaad ku hareeraysa sir sidii habeenkii oo kale ah sirahadayana la ogaanin guusha waxaa iskale cidda xadidaysa waqtiga dagaalka goobta uu ka dhacayo cimilada sida ay tahay ku dadaal inaad adiga noqoto si aad u guulaysato sidoo kale halkan wuxuu leeyahay waa qasab mid micnaha doorasho xitaa ma ahan in aadan ciidankaada u yeelin hal qaab oo la wada yaqaano hal qaab oo loogu imaanayo haddii kooxaha kala duwan ee kubadda cagta ay hal line up mar walba ayna isticmaalin maxaad u malaynaysaan ciidan adiga xitaa ka shakhsi ahaan hal qaab yar lagugu imaanin meeshan wuxuu leeyahay ciddii ogaataa dhinaciisa jilicsan iyo dhinaciisa xooggan ogaataana sidoo kale dhinaca jilicsan ee cadowgaada iyo dhinaciisa xooggan ciddaas ayaa dagaal ku guulaysato cadowgaada adigoona waxba ka aqoonin ma guulaysan kartid halkan wuxuu leeyahay sidoo kale istaraatiijiyad yahanada waxay galaan kaliya dagaal ay og yihiin in ay ku guulaysanayaan inta aynan galin ka hor hogaamiyaha dhabta ah wuxuu ogyahay 5 shay ee soo socda sida buug uu leeyahay 1 inuu yaqaano waqtiga ku haboon bilaabashada iyo dhammaadka dagaalka wuxuu yaqaanaa sida loola tacaamulo ciidankiisa ka awood badan isla waqtigaasna ciidankiisa ka tabar daran ruuxda macnawiga kala dambeynta ciidanka akhlaaqda ciidankaada waa furaha guusha iyo awood ciidan inuu u leeyahay hogaaminta micnaha ciidanka sida qaadashada go'aano degdeg ah go'aano geesinimo leh wuxuu yaqaanaa waqtiga ku haboon ee uu la dagaalamaya cadowgiisa haddii cadowgiisaas uu ku jiro marxalad uu aad uga xogan yahay wuu isu diyaariyaa ma ahan micnaha hogaamiyuhu inuu haadaan iska tuuro isaga ciidankiisa iyo dalkiisaba uu halaago haddii aad halkan soo gaartay waan ku mahadcelinayaa waxaan soo gaarnay gunaanadkii mawduucan aan uga hadalnay buuggan fanka dagaalka intaan ayuu ku egyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.